Kooxaha sida joogtada ugu guuleysta horyaalada gudaha balse aan badnayn guulaha qaaradda ayaa isku wajahaya lugta hore ee semifinalka Champions League iyadoo Paris Saint-Germain ay gurigooda ku soo dhaweyneyso Bayern Munich. Kooxda difaacaneysa koobka ayaa si fudud uga gudubtay Liverpool wareegga sideed-dhamaadka iyagoo 4-0 ku garaacay wadar ahaan, taasoo sahashay inay kula kulmaan horyaalka Bundesliga. Bayern iyaguna oo ka hortagaya soo laabasho ay sameyn lahayd kooxda kubadda cagta ee Real Madrid, inkastoo ay PSG dhibaato yar kala kulmeen difaacooda horyaalka Ligue 1 oo ay sameeyeen qaladaad qaar. Haddana kooxda uu hogaaminayo Luis Enrique waxay si fiican ugu dhex muuqdeen Champions League waayadii dambe. PSG waxay hadda ku jiraan taxanaha guulaha ugu dheer ee Yurub xilli ciyaareedkan iyagoo gaaray 4 guul oo xiriir ah ay ka gaareen Chelsea iyo Liverpool, waxayna dhaliyeen 12 guul intaas gudahood, taasoo u suurtagelisay inay gaaraan semifinalka Champions League 3 sano oo xiriir ah. Ma jirin koox Faransiis ah oo horey u sameysay arrintan ka hor Enrique, kaasoo 2 jeer xiriir ah 2-0 uga adkaaday Liverpool. Inkastoo PSG ay nasiib darro u ahayd inay lugta hore kaliya sidaas ku badiso, haddana lugtii labaad Dembele ayaa 2 gool dhaliyay si uu u xaqiijiyo guusha. PSG waxay hadda doonaysaa inay sameeyaan taariikh kale oo Faransiis ah iyagoo noqon kara kooxda ugu horeysa ee dalkooda ee gaarta 100 gool Champions League. Guushoodii ugu horeysay ee tartankan qaabkiisa cusub waxay si lama filaan ah uga heleen kooxda kubadda cagta Bayern Munich xilli ciyaareedkii 1994-1995 kadib guushii Anfield. PSG 2-1 kaga adkaatay Lyon, laakiin waxay dib ugu soo laabteen qaabkoodii ugu fiicnaa iyagoo 3-0 ku garaacay Nantes iyo Angers. Waxay hadda 6 dhibcood ku hogaaminayaan Ligue 1 iyagoo 4 kulan u harsan yihiin, waxayna u baahan yihiin 2 guul oo kaliya si ay u xaqiijiyaan horyaalka. Kooxda kubadda cagta Bayern Munich waxay 4-2 kaga garaacday Stuttgart 19 Abriil oo ku xaqiijiyeen horyaalka Bundesliga. Dabaaldegooda waxay ahaayeen kuwo degan, taasoo muujinaysa inay caadi u tahay inay ku guuleystaan horyaalka gudaha ee Bundesliga. Si kastaba, Bayern ma aysan guuleysan Champions League tan iyo finalkii Covid-19 ee 2020, waxayna ku harayeen 4 jeer quarter final iyo 1 semifinal tan iyo markaas. Waxayna sidoo kale jirta rikoor xun oo ku saabsan semifinalada labada lugood maadaama ay lumiyeen 5 kulan ugu dambeysay ee noocaas ah. Laakiin dhinaca kale, Bayern waa kooxda ugu fiicneyd Yurub tan iyo bilowgii 2026 iyagoo guuleystay 7 kulan oo xiriir ah Champions League kadib markii ay ka adkaadeen Real Madrid. Waxay sidoo kale 9 kulan oo xiriir ah ku guuleysteen dhammaan tartamadan, waxayna 2-1 uga adkaadeen PSG bishii November markaas oo ay kula kulmeen garoonka PSG. Wararka dhaawacyada iyo kooxaha dhanka kooxda kubadda cagta PSG, Desire Doué, Nuno Mendes ayaa dhaawac qabaan, laakiin waxaa la filayaa inay ciyaaraan. Fatina Sheka ayaa ku jira, Fabio Ruizna waa uu soo laabtay. Dhanka kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich, tababare Vincent Kompany ayaa ganaax ku maqnaan doona. Gnabry dhaawac ayuu qabaa. Joshua Kimmich iyo Upamecano ayaa soo laabanaya. Harry Kane ayaa doonaya inuu gool dhaliyo kulankiisa 6aad oo xiriir ah UEFA Champions League. Dhanka iyo line-up-ka haddaan fiirino, dhanka PSG goolhaye Xavi, Hakimi, Marquinhos, Baggio, Mendes, Ruiz, Zaire Emery, Neves, Doué, Dembele iyo Kvaratskhelia. Dhanka Bayern goolhaye Neuer, Stasny, Upamecano, Taha, Lemar, Vlahovic, Kimmich, Olise, Musiala, Diaz iyo Kane. Inkastoo ay kulamadii hore aysan badanin labadan kooxood wada dhalin goolal badan, haddana ciyaartan waxaa laga filayaa inay goolal badan dhaliyaan maadaama ay labada dhinac ay haystaan weeraryahanno heer sare ah. Labada kooxood waxay heleen nasasho ciyaartoy muhiim ah. Bayern xitaa iyadoo tababare ka maqan yahay waxay awood u leeyihiin inay PSG la tartamaan oo ay barbaro adag la galaan. Saaxiibayaal, hadda inta aad nala soo gaartay waad mahadsantahay. Subscribe noo saar hadaad hor nala joogtana, muuqaalka like saar.